agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda Jubbaland Aadan Faarax Gaarane ayaa maanta xarunta wasaaradda kulan isbarasho kula qaatay qaar ka mid ah culimada degmada Kismaayo. Kulankan agaasimaha iyo culimada ayaa isbarasho kadib looga wada hadlay sidii looga hortagi lahaa wax waliba oo anshax xumo iyo sidii loo wacyigelin lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan. Kulanka kadib agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda Jubbaland Aadan Faarax Gaarane ayaa Jubbaland TV uga warbixiyay kulankan iyo waxa uu ku saabsanaa. kulan la qaaday isbarasho iyo dardargelinta hawlaha u yaala wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda Jubbaland culimada ururka culimada Jubbaland wasaaradda u diiwaan gashan xaqiiqdii isbarasho wanaagsan baa meesha ka dhacday waan isbaranay qodobada ugu muhiimsan ee maanta aan ku soo qaadanayna waxay ahayd sidii wasaaradda culimada ay wala shaqeyn lahayd kor u qaadida shariicada islaamka iyo ka hortagga waxyaalaha munkarka ah ee taagan waxyaalo badan bay culimada soo bandhigeen oo runtii magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland ba ka jira oo munkaraad ah oo u baahan in laga hortago xaqiiqdii waxaa lagu soo qaadan doonaa qodobadaas xadarooyinka maartay ay ugu soo horeysa maartay jimcooyinka iyo khudbadaha jimcada iyo ciidaha waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan ummadda ku nool deegaanada Jubbaland in laga fogaado waxyaalaha maartay shariicada islaamka ka hor imaanayso. Marka qodobka labaad ee maanta lagaga hadlay waxay ahayd u diyaargarowga udhiyada oo aan ogsoonahay in ayada laftigeeda u baahan tahay in dabagal lagu sameeyo xoolaha la qalahayo ciida al-adha loo qalayo udhiyada in ay yihiin maartay ku waafaqsan shariicada islaamka. dhammaan waxaan ugu baaqaynaa muassasaadka ku hawlan inay sameeyaan in ay la soo xiriiraan wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta lagana jeegareeyo xoolahaas inay yihiin xoolihii loogu talagalay in la qalo udhiyada. xaqiiqdii waxyaalaha ugu muhiimsan ee culimada ay ku soo qaateen waxaa ka mid ahaa in la xoojiyo wada shaqeynta wasaaradda iyo culimada ururka culimada Jubbaland oo wada shaqeyn xoog leh iyo in la mideeyo masaajidada salaadaha iyo xilliyada la adimo oo runtii sometimes dhacda in maartay la kala adimo oo xilli salaad masaajid laga jiro masaajid kalena aadaanku uu ka jiro. Marka waxyaalahaas iyo waxyaalo badan baan ku soo qaadnay. waxaan kaloo rabaa inaan u soo bandhigay waxyaalaha maartay hortaginta u leh wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo lambar 1 ay ka tahay kor u qaadida iyo ku dhaqanka shariicada islaamka oo waxyaalaha mandatka wasaaradda lambar 1 u ah. waxaan rajaynaynaa insha Allah kulamada inay sii socdaan iyo dhammaan maartay inta bahwadaagta leh wasaaradda inaan maartay isbarashada sii wadno. waad ku mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.